السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام kusoo dhawaada casharkeeni shanaad aan rajeynayo inuu yahay analytic trigonometry fasalka form 4 wuxuu ahaa chapterkeeni koowaad. qaybta koowaad ayaa dhamaad noo ah oo hal example oo maanta aan qaadan rabna ayaa inoo haray, kadibna qaybtiisa labaad oo ah sum and difference for cos for sin and tangent ayaan qaadan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. qaybtan koowaad aan isla qaadano example-kii ugu dambeeyay hadduu Ilaahay yiraahdo. example-kan wuxuu dhici doonaa sida tan soo socota. example-ka lixaad waxaa la yiri verify waxaad cadeysaa the following equations isleegyada soo socda is an identity of inay isla mid yihiin sec 3/2 minus x kaada inay la mid tahay minus cos sec x. labadan equation inay isku mid yihiin caday oo lagu yiri cadeyna laga rabaa waa isku mid caday. labadan equation waa isku mid caday ayaa la yiri. waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo marka sec 3/2 minus x minus cos sec x na jawaabta aan soo saarayo inay noqoto. kaan ku shaqeey doon waa left hand side, tan dhanka bidix ayaan ka shaqeyn doonaa. waxaan rabaa jawaabtiisa soo bixaysa inay noqoto dhanka midig oo ah minus cos sec x. intaanan equation-ka shaqadiisa aan u gudgalin waxa waajib igu ah oo aan qasab igu ah inaan ogaado wax la yiraahdo reciprocal identity. trigonometric reciprocal identity waa inaan aqaanaa. wax yar aan isla qaadana marka. reciprocal identity-ga waa kuwana. waxaan u dhihi doonaa cos sec theta waxay la mid tahay 1 over sin theta, sec theta waxay la mid tahay 1 over cos theta, cot theta waxay la mid tahay 1 over tan theta, tan theta waxay la mid tahay 1 over cot theta. haddii la rabana waxaa lagu siinaa 1 over sin waxay la egtahay cos sec, 1 over cos waxay la mid tahay sec. adigu isku badbadalo hadda waxaa la ii siiyay sec theta, sec theta waxaa loo ogayaa inay la mid tahay 1 over cos theta soo ma marka. oo theta inta ka keenta daa idhaahdo 3/2 minus x muxuu ku mid yahay soo theta la mid maaha. waxaan leeyahay sec theta waxay la mid tahay okay midaan labaad ayaa hadda sec theta la ii siiyay sec 3/2 minus x la ii siiyay. iyadu waxaan ku bedelan karaa 1 over cos theta, booska theta waxaan ku bedelan karaa 3/2 minus x. okay waxaan leeyahay sec theta wuxuu la mid yahay sec theta wuxuu la mid yahay 1 over cos theta. ana og thetadeeda inay la mid tahay maxay 3/2 minus x. okay ku bedela marka thetadaada waxa ku bedelaysaa kaliya sec theta soo inta ima taalo 3/2 booska x aan ku bedesho bes. okay booska theta maxaa ku bedeshay 3/2 minus x. haye 1 over cos theta maxaan sameynaa 1 over cos markaan dhaho booska theta iyadana waxaa ku bedeltaa 3/2 maxay minus x. inta un baa ku bedelna meesha theta ku arko. okay waxaad tiraahdaa cos 3/2 theta booskeeda maxaa gashanaya marka 3/2 minus x geli. okay inta markay ay tahay 1 over cos 3/2 minus x. qaybtan hoose fiirso marka, qaybtan hoose oo ah 3/2 minus x. 3/2 waxay ku lamid tahay x kan muxuu ku lamid yahay b. saa darteed waxaan ogahay cos a minus b qaacido lagu helo ayaan soo bartay oo aan ku soo bartay qaybtii hore ee chapterka. cos a minus b sum and difference formulas-ka dib ugu laabo. cos a minus b muxuu la mid ahaa soo ma ahayn cos a cos b ama cafwan aan dhaho cos a minus b ayaan rabaa inaan ogaado cos a minus b muxuu la mid ahaa intaa soo la mid ma ahayn cos a cos b plus sin a sin b soo intaa la mid ma ahayn. intaan hoose waxaan rabaa intaan waxay ila mid ahayd intaan soomahan qaacida ahaan intaan ila mid ahayd. waxaan rabaa markii inta inaan ku badbadasho bes. waxaan leeyahay 1 over cafwan 1 over haye intaan ayaan ku bedelan doonaa qaybta hoose
anoo laakiin box kastoo a ku bedeli doono 3/2 box kastoo b na ku bedeli doono minus x aan rabaa 3/2 meel kastoo a ku bedelaa meel kastoo b na maxaan ku bedelayaa x okay intaanaan qaacidadan hoos ku qoran doonaa waxaan dhihi doonaa cos a boxkeed maxaan ku bedelnaa 3/2 minus x afan 3/2 qaybta b na haye cos markaan dhaho qaybta b na maxaan ku bedelnayaa x soma marka afan kore iga noqotay hoosaan rabaa cos x soma marka balaas aan soo qaado haye sin a markaan dhaho boska a maxaan ku bedelnaa hadana sin boska a waxaan ku bedelnaa 3/2 sin b na maxaan ku bedelnaa idana sin markaan dhaho b boskeeda x ku bedelo inta marka taagana waxaan dhihi doonaa cos 3/2 qiimuhu la mid ah muxuu yahay markaad u fiiriso special angles formulas special angles equal waxaan leeyahay 1/3/2 muxuu la mid yahay special angles ka dib ugu laabo soo fiiri oo waxyaabo la mid 3/2 waa 270 0 ayuu cos ka yahay cos waa 0 si fiican u fiiri kuma la laaban karno okay cos x u soo qaaday isagu special angles ka si fiican ula soco plus haye sin 3/2 muxuu la mid yahay -1 ayuu la mid yahay haye sin x na u soo qaado waxaan filayaa inta in la ila gartay okay waxaan dhahayaa hal la hoos dhigay u soo qaaday isaga hal la hoos dhigay 0 cos x ku dhuf maxaa waay waa 0 waa burburiye soomahan haye balas minus ku dhuf waa minus 1 di sin x lagu dhuf maxaa waay 1 hadii sin x lagu dhuftan maxaa waay la balas ay minus ka isku dhuftay 1 sin x ku dhuftay waa sin x 0 minus sin x soo heli waxaad tiraahdaa marka 1/hal la hoos dhigay 0 sin x ka jir 0 wax mu ka bedelaamay minus sin x dhe marka minus ka hadii banaanka iska geey maxaa iga halaabayo adaha minus sababtoo ah minus ku ka wada dhaxay Soomaan 1/sin x dhe marka minus 1/sin x dhe reciprocal identities ka dib ugu laabo mar kale minus ka soo qaado minus kan oo soo qaatay 1/sin x reciprocal identity ga hadda dib ugu laabo aan bal fiirino 1/sin x muxuu noo limid yahay 1/sin x fiirso 1/sin theta waa kana x theta waa wax isma dhamaan 1/sin theta muxuu limid yahay cosec theta Soomaan okay boska theta x haystaa maxaan dhahaa marka cosec x le marka waxaad tiraahdaa cosec x maxaan dhahayaa cosec x afwan carabiga iga saarmay maxaan dhahayaa cosec x okay jawaabta inta ay inoo egtahay example-kii ugu dambeeyay qaybta koobaad qaybteeni labaad ayaa inoo bilaaban doonta oo sum and difference for sine and tangent hadduu ilaahay yiraahdo billahi tawfiiq. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.